qisadeenna maanta waxay ka hadlaysaa nebi muuse calayhi salaam iyo buurtii duur. kadib markii uu nebi muuse oofiyey muddadii 10 sano ahayd oo uu la joogay reer madyan, ayuu wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto Masar. wuxuu doonayey inuu arko ehelkiisii joogay Masar. waxaa la sheegaa in safarkiisa uu ku soo beegmay xilli habeen madow ah, waxayna ka lumeen waddadoodii. xilligaasina waxaa la socday reerkiisa oo garan waayeen halkii ay ku socdeenba. muuse calayhi salaam wuxuu arkay dab ka baxaya meel fog oo xagga jihada buurta ka ifaya. wuxuu ku yidhi reerkiisa, bal isuga, waxaan arkay dab. dabkaasi uu arkay muuse calayhi salaam ma ahayn waxay arki kareen reerkiisa. dabkaasi wuxuu ahaa iftiin aysan arki karin cid waliba. وهل أتاك حديث موسى oo miyay kuu timid qisadii muuse calayhi salaam إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. markii uu arkay dab wuxuu ku yidhi reerkiisa, suga, xaqiiqdii waxaan arkay dab. waa intaas oo aan idinkaga keenaa dhimbilo dab ah xaggeeda, ama aan tilmaan ka helaa dabkaasi, yacnii dadka dabka u shidan yahay. waa intaas oo ayna tilmaamaan. saa markii uu nebi muuse u soo dhowaaday halkii uu ku arkay dabkii, ayaa hal mar waxaa looga dhawaaqay dhanka midig ee toga duwa, waxaana loogu yeeray magac ahaan muusow. فلما أتاها نودي يا موسى markii uu yimid meeshii uu ku arkay dabka, waxaa loogu yeeray magac ahaan muusow. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. xaqiiqdii anigu waxaan ahay rabbiga, ee iska bixi kabahaaga, waxaad joogtaa toga duwa ee daahirka ah. sida ay sheegaan taariikhyahannada, nebi muuse calayhi salaam markii uu soo aaday xaggii dabkii uu arkay, ayuu wuxuu arkay in dabka uu ka shidan yahay geed cagaar ah oo qodxa leh, oo markaasi sii ifaya, yacni sii caddaanaya. geedkana wuxuu sii noqonayay mid cagaar ah ama akhtar ah. nebi muuse calayhi salaam wuxuu muujiyey degganaan badan, wuxuusan la yaabanaa waxa meesha ka dhacayay. wuxuu muuse calayhi salaam markaasi taagnaa togga lagu magacaabo duwa, wuxuuna taagnaa isagoo u jeeda xagga qiblada. geedkana uu ka xigay xagga dhanka midigta ah oo ka xiga jihada galbeedka. markaasaa rabbi ugu yeeray toggaasi, wuxuuse muuse marka hore ku amray inuu iska bixiyo kabihiisa si uu u muujiyo ixtiraamka uu hayo meeshaasi. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. xaqiiqdii anigu waxaan ahay rabbiga, ee bixi kabahaaga, waxaad taagan tahay toga duwa ee daahirka ah. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. aniga baana ku doortay ee dhegayso waxa lagu waxyooday. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. xaqiiqdii anigu waxaan ahay allah, laa ilaaha ilaa ana. cidna xaq uma laha in la caabudo aniga ma ahee, ee aniga ay caabud, una oog salaadda si wanaagsan xusidayda darteed. ربنا الله
tani waxay ahayd dhambaalkii ugu horeeyey ama waxyigii ugu horeeyey uu hela muuse calayhi salaam. dabadeed alla weyne wuxuu nebi muuse u sheegay in dunidani aysan ahayn meel lagu waarayo. nolosha lagu waarayo ee baaqi ahaanaysa waa nolosha dambe ee aakhirada ah. markii nebi muuse calayhi salaam uu alla weyne si toos ah ula hadlay oo alla weyne isku sheegay inuu yahay rabbiga uumanka, dadka, jinka iyo dhammaan waxyaabaha jira oo dhan, ayuu alla weyne wuxuu nebi muuse weyddiiyey waxa gacantiisa ku jira. waa gacanta muuse calayhi salaam. oo maxay tahay taasi? yacni waxa gacantaada midig ku jira muusow. wuxuu yidhi muuse calayhi salaam, tani waa ushayda oo aan cuskado, waana mid aan ku jafaaliyo arigayga, isla markaana ay igu jiraan arrimo kale, yacni waxyaabo kale aan ku qabsado. markii nebi muuse calayhi salaam uu alla weyne u sheegay waxa uu ushiisa ku qabsado, ayuu alla weyne wuxuu muuse ku amray in usha gacantiisa ku jirta uu iska tuuro, yacnii uu dhulka ku tuuro. saa markii nebi muuse calayhi salaam uu ushii dhulka dhigay, mise waaba abayso ama mas u dhaqaaqaya si degdeg ah. allah wuxuu ku yidhi muuse, bal hoos u tuur usha muusow. wuxuu ushii u tuuray hoos, mise waa abayso u dhaqaaqaysa si degdeg ah. nebi muuse calayhi salaam waxaa gashay cabsi daran. wuxuu isku dayey inuu meeshii ka cararo, laakiin alla weyne ayaa nebi muuse u sheegay inuusan cabsan oo uu qabta maska. waxaana hubaal ah oo loo sheegay in sideedii hore laga dhigi doono, yacni usheedii lagu soo celin doono. markii uu nebi muuse qabtay maskii, misna waxay noqotay sideedii hore oo usha ahayd. saa intaasi kadib nebi muuse calayhi salaam waxaa la tusay calaamooyin kale oo ka yimid xagga alle. markii uu intaasi xaqiiqsaday, ayuu alla weyne wuxuu muuse ku amray inuu u tago fircoon, midkaas oo qooq iyo kibir dartii dunida u fasahaadiyey. اذهب إلى فرعون إنه طغى. u tag fircoon, xaqiiqdii waa uu qooqay oo kaga baxay dhammaan xuduudaha alle, gaalnimo, caasiyoobid una dhaqmay isla weyni iyo qaa'inimo. nebi muuse calayhi salaam markii uu addeecay amarkii alle oo ogaaday in loo diray fircoonkii kibirka iyo qooqa u rogay dhulkii masar, ayuu alla weyne wuxuu ka codsaday waxyaabo ku xoojinaya inuu xaqa gaarsiiyo fircoon. wuxuuna yidhi, muuse wuxuu yidhi, rabbiyow ii waasici laabtayda, yacni isii kalsooni, qaneeco, iimaan, geesinimo iyo wax la mid ah. iina fududee hawshayda, iigana fur guntinta carabkayga, yacni waa ka saar qaladka hadalkayga. maxaa yeelay waxaa la sheegaa in nebi muuse uu ahaa carabkaje. middaas oo ku timid markii uu yaraa ayaa la sheegaa inuu dhimbil dab ah afka uu geliyey. waana sida uu qabo tafsiirka ad-dabari mujalladda 16aad bogga 1591. bal si ay ii fahmaan dadkayga, iigana yeel caawiye ehelkayga mid ka mid ah, gaar ahaan walaalkay haaruun. alle casa wajalla wuxuu muuse ka aqbalay dalabkii uu u soo jeediyey oo dhan.
markii nebi muuse calayhi salaam uu alla weyne ka dalbaday in alla weyne uu laabta u waasiciyo oo carabkiisa guntinta looga saaro oo walaalkiisa haaruun lagu daro si uu garabkiisa u istaago maxaa yeelay isaga muuse ah waxaa ka hadal fasiixsanaa walaalkiisa haaruun la soco qaybta labaad ee qisadii nebi muuse calayhi salaam in shaa allah. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا